in badan quraanka kariimka waxaad ku maqashay magaca yaa bani Israa'iil sidoo kalena dhigtaada way ku soo dhacday dhulka Falastiin ee maalin kasta ay ku dagaalamaan kuna hirdiyaan iskana difaacaan Yuhuudda gumaystaha ah waxay ahayd dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka 1948 kadib markii Yuhuudii ku firdhisaneyd caalamka gaar ahaan wadamada reer galbeedku ay go'aan ku gaareen inay ku soo laabtaan wadankooda iyada oo ay horkacayo Ingiriisku ayaa waxa lagu taliyay in Yuhuudda dhul loo sameeyo waxayna doorteen Yuhuuddu in lagu celiyo dhulkii ay dhaheen waa ay deganaayeen awoowayaasheen ee Falastiiniyiintu degan yihiin halkaas ayuuna ka bilowday duulaankii Falastiiniyiintu ilaa maanta oo laga joogo 72 sano waxay ku jiraan dagaal joogto ah iyagoo qaxooti ku noqday adduunka hiilna ka waayay walaalahoodii Carbeed magacaygu waa Cabdiraxmaan Yaasiin ku soo dhawaada barnaamijkeena wacyi oo kaga hadli doono wacyiga dhabta ah ee ka jira adduunka fadlan ha hilmaamin subscribe tiraahdo kanaalka sidoo kalena like saadho muuqaalkeena mahadsanidin waxay deegaan ahaan u dhaxaysaa Israa'iil badda Cas iyo badda Mediterranean-ka midna aan isla fahanno dhulku waa dhulka Falastiin waxa ka faa'iideystay waa Yuhuudda magaalada Daarusalaam waa magaalo barakeysan waa meeshii uu ku dhashay Nabi Ciise sidoo kalena waxay masiixiyiinta u aaminsan yihiin inay tahay goobtii lagu dilay Nabi Ciise waa siday aaminsan yihiin waxay masiixiyiinta u tahay sida xajka muslimiinta oo kale dhaqaale fara badan ayaa ka soo gala Israa'iil masjidka Qudus waa masjid isaguna maqaam sare noogu fadhiya marka aad magaalada aragto waxaad arkaysaa Yuhuudda oo durbiyada ku oynaya dadka Yuhuudda marka aad taariikhda dib u raacdo waxa ahayn dad aad u madax adag xusuusha inta badanna ku caasiyay waxaana ku dhow haradii lagu halaagay qowmuluudkii intixaamka ahaa deegaan ahaan waxaa lagu qiyaasaa in 75% dalka Israa'iil ay yihiin dad Yuhuud ah sidoo kalena tirada Yuhuudda caalamka oo dhan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 14 milyan halka ay 34% degan yihiin Falastiin deegaan ahaan Falastiiniyiintu waxay degan yihiin 22% oo kaliya halka 4% ay qowmiyadaha kale degan yihiin inta kalena waa Yuhuud 1948 markii ay Yuhuuddu ku soo duuleen dhulka Falastiiniyiinta qabsadeen waxa lagu qiyaasay tiradooda ilaa 850,000 oo qof wax ka yar 1 milyan 2025 kana waxa lagu qiyaasi doonaa inay gaarayaan ilaa 10 milyan dhanka kale Gaza wali xaalkeedu aad ayuu u xun yahay maalinba maalinta ka dambaysa waxa badanaya dhibaatada lagu hayo dadka Falastiiniyiinta ee deegaanka ah ilaa 2005 waxa lagu hayaa go'doon joogto ah iyo dagaallo iyo dhibaatooyin joogto ah ma ogtahay in haweenka Yuhuuddu badankood ay xirtaan niqaabka ama indhashareerka oo muslimiintu inta badan xirtaan waxa ayna ula jeedaan waa dhawrida quruxda iyo ciifinimadooda waxa kale oo meesha ku jirta in 35% Yuhuuddu ay yihiin qowmuluudka dadka loo yaqaano gaar ahaan ku badan yihiin magaalada Tel Aviv ee gumaystaha Yuhuudda xarunta u ah inkastoo ay la yaab tahay in qaarkoodna xirtaan niqaabka qaarka kalena ay qowmuluud yihiin dhaqan xun waxa kale oo Yuhuudda dhaqan u ah dawlad ahaan in dumarka la ciidameeyo sida ragga oo kale muddo u dhaxaysa 2 ilaa 3 sano oo ay askariyad ahaato Israa'iil waxa laga isticmaalaa lacagaha kala duwan dollarka tan Sacuudiga iyo tan Masarba suuqana waxaad awoodaa inaad kaga soo adeegto lacagta aad isticmaalayso taasna waxay sahashaa in dad badan soo boqdaan wadanka oo dalxiisayaal ah Mareykanku waxa uu si sanadle ah u siiyaa Israa'iil lacag gaaraysa ilaa 5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si uu dhaqaalahooda iyo ciidamadooda u kabo waxa uuna ku maalgeliyaa wadanka Israa'iil lacag gaaraysa ilaa 160 bilyan oo dollarka Mareykanka sanad kasta si ay u sii wadaan duulaanka iyo gumaysiga ay ku hayaan masaakiinta Falastiiniyiinta ah dhawaan ayayna ahayd markii Trumpka Mareykanku uu aqoonsaday Daarusalaam inay noqoto caasimadda Israa'iil waxa kale oo xusid mudan in wadan Islaam ah oo arrinkan ka dhidiyay uusan jirin waxa kale oo sii dheer muslimiinta reer Falastiiniyiinta cadiyada ciidamada Yuhuuddu ku dhex geystaan Qudus waa magaalada ugu qadiimisan caalamka ahaan waxaana laga helay sanadkii 1936 lafo timireed aad u duug ah laguna qiyaasay inay jireen ilaa 2000 oo sano waxaana la beeray 2005 waana baxday guud ahaanba waxaan filayaa inaad wax ka faa'iiday muuqaalkeena maantay fadlan haddaadan ka mid ahayn asxaabta channelka ku soo biir adigoo subscribe gareynaya sidoo kalena ha ilmaamin inaad muuqaalka like saadho mahadsanidin